السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كلنتي وعن أو ونكسن إذا لهانتين به بالوالبا واتشوكتان يسي والبا أو أنولا سعوتان با وحانو إذن لان هاي هالكاني واي اس تي في وحانو نسوغان نحلي قال هذا هانو كلاتان وهواد إذين سو مرين شرني برامج كاني ديكتوشنتا سوال لماذا تضبط كان برامج كان ديكتوشنتا سوال لماذا وحانو كسو قادنا إنا إسلام أهان تاسنا أنو تشوغنا وقت حاضر كاني ومامل كمجالة دا قدي de mar haddii aanu idin dhaahnay waxaanu joognaa maamulka magaalada Guday de waxyaabo fara badan ayaa laga yaabaa inaad filataan daawadayaal de wabigii Shabeelle ayaan wuxuu aan naga fogeyn oo waxa weeyaan meel agtaanada ah mar wabigii Shabeelle hadduu agtaanada yahayna barnaamijka toddobaadkani aanu ku soo qaadanayno dhigjoojinta saboolnimada waxa uu noqon doonaa waa iskaashatada kalluunka saacadu xilligani waxa weeyaan waa xilli aroornimo ah qiyaastii 12 subaxnimo ay hadda afka sii gelinaysaa waqtigaas oo tahay waxa jira iskaashato markaasi ama iskaashatada kalluunka waa xilliga ay markaasi waxa weeyaan ay is soo diyaariyaan ay doonayaan in ay soo qabsadaan waxa weeyaan kalluunka intay markaasi galaan waxa weeyaan wabiga Shabeelle waanu la gali doonaa meeshay galaanba waanu la gali doonaa kalluunkan la soo qaban doonaa waynu wada arki doonaa bal iskaashatada kalluunka qaabka ay kalluunka u soo qabato waxa weeyaan kalluunka meesha ay sii geyso qaabka markaas kalluunka looga sigato iyo guud ahaanba waxa weeyaan iskaashatada kalluunka waxa qabadeeda oo dhan ayaynu wada arki doonaa oo barnaamijkan dhigjoojinta saboolnimada ee toddobaadkan aan ku soo arki doonaa daawadayaal sidaad u wada jeedeenba socdaal yar oo gaaban ayaanu soo galay si aanu u soo gaadhno wabiga Shabeelle gaar ahaan iskaashatada waxa weeyaan kalluunka ee Shabeelle waxa weeyaan goobtan hadda aanu arkaysaan markaas aanu ku sugannahay أنا وقت حاضر كان عجها كل شيء وبيجي شبيلة رنتي أد بنوقف فرح سنة هرت مركب كوباد وحويان كأني جاهان ومركب كوباد وبيجي شبيلة وحويان سيدا نقلتين تن أسود الاستهاجو نصيبنا عن أيار شو إن بيها وبالشبيلة وآخراتك وحويان أقوى وين ودجان كنا صومالي إثيوبيا أولية إن عن مركز عجها عن لجلو فرحة هذا بلارم برنتي كأني جاهان مركز إيت هاي وأمريكي كوباد جود هان وبيجي شبيلة إن كر يا كاميرا كلية عن كأركم ويانا بس سيدا هاي وبيجي أسود الاستاجو iskaashatooyin kan ama baan iraahday iskaashatadani kalluunka Shabeelle waxa weeyaan wabigani ayaa waxa ay ka soo saaraan kheyraadka oo eeba ku maneystay waxa weeyaan si deegaankeena Soomaalida Itoobiya kheyraadka waxa weeyaan kheyraad deegaankeena runtii aad u dihin oo waxa weeyaan maxaan ku dhahay wali cayrin oo la doonayo sidii loo soo saari lahaa guud ahaan xukuumadeena hadda qorshe ay u qaadatay guud ahaan ba kheyraadkeena waxa weeyaan deegaankeena Soomaalida Itoobiya sidii loo soo saari lahaa markaas aan uga faa'iideysan lahaa qorshe inay qaadatay iskaashatadani markaas kalluunka Shabeellana waxa weeyaan kheyraadkii ayay waxa weeyaan deegaankeena sidii loo kobcin lahaa sidoo kale takaalan ka qaadanaysaa halkan markuu galiyo hilibba gudaha looga xiriyaa hilibba ku xiran gudaha hilibba gudaha loo gelinayaa haye
كدنبا ولا هيجا مركا لا هيجو صح فيليب كاس بو سو أورنيا وقليا bal maskaxdan hadda ka hor waxa weeyaan meel yar oo waxaad u sameeysan yar oo waxa weeyaan uu ka gali kara kalluunka oo ugu tala gasheen hilib baad u dhigtaan qalabkan runtii waa sida daawadayaashu bay arkaan si adag baad u adkaysan bal maskaxdan kolka hore fikirkii ugu horeeyay markii uu manayay waxa weeyaan dabinka noocan sabab ku yimid dabinkan wuxuu ku yimid dad hadda ka hor ku shaqeysan jiray oo annaga ka soo gaarnay ayaa jirtay oo waxaan xirfadahan ku shaqeysan jiray haddeer dadkiina kuma shaqeysan kara annaga dhalinyaro ah oo hadda macnaha fikrad ka qaadanay sax marka fikrad waxaan aga qaadanay macnaha annagoo yar baa daba socon jirnay sax marka farsamadii ayagaan ka qaadanay annaga haddeer baan annaga ku shaqeysanaa marka sax marka soo saaristii marka hadda aad iyo aad ayaan wax u soo saarnaa sax maalinkii ugu yartahay ee isdhahdaan waxa weeyaan maanta kalluunku aad buu u yaraa marka aad soo dabaysaan in intee leeg baad markaasi soo dabtaan maalintii u yar adiga ilaa iyo 60 ilaa 70 xabba maalintii u yaran wax weyn inta waan keenaa 70 xabba ilaa 80 xabba meelaha waan helnaa sax maalinkan aad u helnaa adiga 150 meelaha waan helnaa iyadana sax marka aad iyo aad baan wax u soo saarnaa كستو حلالة حقيقة تمر مربوحة نكسر وحيتو شقد حصل لها وتبتو مواد كستو حلالة حليو وها واجب سارن اسبيغو وهرسك جوشا حسبيغو وهو قابشدا حسبيغو وهي لدينا حسبيغو وهي بدينا مدو حاليرا ملامدو مدو حاليرا ملاعد مدو حاليرا وين مدو حاليرا أدومو كويرو حجرا أن لقبنا عادي ويسكيت شرو وصلنا ألم بهن وقرو كوا ير مركا لقدن نحيي مركاس محاكو حلو جديا كو اسنجبا ليرا كو هولي باليرا كو نقوق لبا ليرا كوا يرا كو لنا ولكن وقلا شبك واحد قتل مرة صح استكتورنا كوية انتاس نوع بو قرب حبات هبينكي بو أمادا باك دراتي مقرب هبينكي حلقة تدبادة سديدي صح حليها ححنك سقط حو قلاب أساقا بسورة السنة صح وقلب بالك مركا وحي كدقان تاي شبقا وحاويان هالكاسات ديغيسان markay habeenkii gaadhay ama shanqadhu ay yaraato ayuu markaas u imanaya asaga amaano isku guray aad iyo aad waa kam baxa kar waa dhiman karaan diin laga bixin la amaan sax asagoo dhintay baa loo amaano si uu jiro ma baxay bahal adag sax marka mar hadduu halkan ka galo waxay ka dhigan tahay sida uu ku baxo markaas way adag tahay uu dhiman riyaan uu amaano soo dhin sax baxa karo sax waa wax laga fikray oo adag صح هادي سيدان ودا جدada waa saas waan buu gala mana ka bax kara meeshan u jeed صح bal waxaan jeclaan lahaa webigan intaan khayraadkiisa la gaarin oo khayraadkiisa waa wax cad walba ay garanayso yar iyo weyn bal wada garanayo waxa weeyaan webi marka la leeyahay guud ahaan ba khayraad aad u fara badan inuu leeyahay khayraadkaas ka sokow hadana waxa jira waxa weeyaan khatarooyin yar yar oo markaas uu leeyahay haba markaasi ka mid ahadaba yaxaasku waxa weeyaan webigani waxaan noo sheegteen mar dhaweyd in yaxaasku halkaas ku leersanayay meel agagaarkan ah bal yaxaaska iyo inagu saad isku la macaamiishaan markaas yaxaaska inuu waan aragnaa laakiin isma gudubnaba صح مرمر بو بهالكا أماده جبيا اسم الله يجي وحام كسكو أرك صح أسكا كلب حاس جبيا سو تشوفنا وأمانة واحدة جنا فبعده نكو علنا لكن سكو مسو جذبنا صح وأنا نفتان سو ما هويست صح إنه ملايك ماشي كتير أسكالب حموي أديا نفتان سو ما هويست أديا بل محاد اللي سويه يحاسكو إن أوصل مركزي إنك أوصل لسوا هويست إن محاد اللي يحاسكو وحاول بيها ننقل قلها بدنا ما برباب صح روح جبيك تاجن أو مسبيا أرورنا
سعادة دقعمها يوحى اسكبخا صح بود لا يحس صح لكن قفان كبقينين او وبيغا بغلغليا aad marka waxa leedahay maadaama anagu reer biyaan islaan nahay isku qolaano nahay oo waanu kala xishoonaa xadid baan kala leenahay waatay aad badan ma hadsantahay waa sida ay u badan tahayba marde anu waan yaabay oo marka dhahdaan yaxaas baahila ama gabiga naga soo horjeeday fadhiyay waadiga yarkay cararkayga baxay iyo orodkan is dhigay cabsida markaas yaxaaskan ka qabo balse waxay ka dhigan tahay biyaha markaad inagu galeysaan kalsooni markaas aad isisiisaan ama aad qabtaan waxa weeyaan yaxaaskan inuusan ina soo haweysanin ayaa keentay in waxa weeyaan biyaha gudihiisa kheyraadka ku jira waxa weeyaan inaynu kala soo dhaxbaxno isla markaasna maxaan ku dhahaynaa soo saarno iyadoo wax cabsiya oo markaas dhinaca yaxaaskii uusan jirin ana markaan biyaha galino wax yaxaas oo cabsidiis lagu jirto maba galnabo aad عادي بنلام بنساسكي جويننا نقلنا كبعد وكل كلا بحنا صح ويحاس يعبسدي سبو لما قش واجرتاي ومركان كغورنو ماشي waxaan ka fahmo wayna malaayga waxaan ka wayna صح ومeel kale aan guurino aye oo sidaganya jirta oo iska dheeraanimba marka meesha loo guuraa waa marka in la iska hagaajiyo habeenkaas la socdo meesha صح bahalada markaan aan hibno dhigno as amaadan ka erno aan as ogaada meesha inay la soo tagay صح saabas asana ku sii guuro meel kale ku sii guuro صح as naga fogaan صح kabacdi meesha markii noo cidlo waan sixirnimo oo shaqaysana صح ka inta hore aan meesha u guurin waa in laga qaxayo isaga waa la qaxayo meesha weerda laga qabtaa oo amaanay waa laga eri oo amaan marka dambe banaanka uu ka maraya ka guuriya aad marka waxay ka dhigan tahay khatar kale oo saameyn yeelan karto oo yaxaaska ka ahayn oo webiga Shabeelle markaas uu leeyahay ma jirto aad yaxaaska umbalska alaalimo wax kale oo jira ma laha goobtan ku sugannahay ee iga dambaysa waa isla iskaashatada kalluunka ee Shabeelle goobtani waa goobta suuq geynta ama hotelka markaas kalluunkaasi ay soo qabtaan waxa weeyaan meeshii lagu karinayay iyo meeshii lagu keedinayay guud ahaan baadii ay tahay xitaa si jamac ahaan looga qaadanayay ama looga soo doonanayayba weeyaan horta hore bahalkan waa kalluunkii kheyraadkii wadankeena ku jiray weeyaan marka labaad kalluunka dhaxdiisa faa'iidooyin badan baa ayaa ku sii jira faa'iidooyinka ku sii jira waxa koow ka ah halkan aad aragtaan madow ma way baa la yiraahdaa waxa weeyaan waa meesha ukunta koow uu ka qaato weeyaan waxa marka uu fitamiinkiisu u yahay ruuxa xanuunka maskaxda aad u jiran ee maskaxda ka jiran iyo dadka dhalmadu ay ka xun tahayba intan faa'iiday u tahay marka waa qaybta koobaad ee annaga macnaha hadda inta badan la weydiiyo weeyaan magaceedana ma way baa la yiraahdaa waa meesha ugu fitamiinsan ee markii la kariyo ama la shiilo ugu fitamiinsan ee dadku uu jecel yahay weeyaan marka inta yarteeda aragtid waa la sii dalbadaa lacagtiisa qayb waa la sii dhigayaa maanta aniga halay u tala galo ayaa la leeyahay waa meesha ugu fitamiinsan halka mideeda kale waxa jira subagiisina waa kan waa subagiisii isaga ka dhashay isagana waa qaybta kale ee ugu fitamiinsan weeyaan oo isagana waa la raadiyaa qayb gooni oo lacag gooni oo lagu gado oo uu leeyahay waana meesha ugu fitamiinsan waa subagiisii hilibkiisii la shiilayna waa kan waa kalluunkuna wuxuu kala leeyahay kalluun cad iyo kalluun madoobe ayuu kala leeyahay kalluun cadka ayaa si macaan oo si wanaagsan oo kalluun madoobaha kalluun cadka ka wanaagsan marka hadda kana aragtid waa kalluun caddihi weeyaan
hilibkiisi talaagad baan gelinay talaagad buu xalayta ku bariyay haraggiina weli lagama saarin qayb haraggiina baa ku jira eega ayaa laga fiiqayaa haraggu waa intaa yar madow ninkan baa khimrad u leh wiil hadda halkaa garabkaaga taagan baa khimrad u leh isagana haragga waa laga saari markaasuu shillimaadka u gelahayaa marka khayraad badan oo inaga maqnaa ayaan ku guulaysanay oon hadda waddankeennii laga bilaabay baan leeyahay aad iyo aad baan ugu guulaysanay waxaan ka helay shaqo abuur fiican oon waagi hore aan jiri jirin ayaa hadda bilowday sababtay tahay ani hadda bidhaantiisa waagi hore markaan arko waan ka carri jiray haddana habeenkii inaan cuno mooyaan ma seexdagtay inaan cuno mooyaan hadda ma seexdo waagi horena maana aqoonina waan ka baqi jiray oo eegana waa inaan aroortii taabto marka faa'iidooyin badan uu bahal ku leeyahay oo eega la ogaaday bismillaahir rahmaanir rahiim anaga waxaan ay iskaashatadii shaqo abuurka ka heshay gobolka Shabeelle kalluunka waa kalluunka kheyraadka dabiiciga dalkeena kalluunka aad buu wanaagsan yahay kalluunka waa kalluun aad u wanaagsan waxyaalo badan buu leeyahay oo dadweynaha u soo kordhiyay sababta waxyaalo aad aga maqnaya dadweynaha iyo hadda helaan waayo wax faa'iido badan buu leeyahay sababtiisa markiisa waa daawo asaga waa daawo wax waliba daawo iyo ka yahay ma garatay xisbigu wuxuu nagu dardaaray muwaadin kasta oo xalaala xaqiijinta horumar buuxa dhankiisa inuu xayto shaqada xusullada u tobto muwaadin kasta oo xalaala xiliyo ahaa waajib saaran xisbigu waa horseedka guusha xisbigu waa huga bulshada xisbigu waa hiiladeena xisbigu waa haybadeena waxaan soo saaranaa kalluunkan eega garabkayga yaallo oo u jeedaan waa shaqaaluhuna wuu badan yahay qaar webigu ka soo bixiyaa oo ka soo qabtaa qaar wuuba soo qaadaay oo meheradu keenaa qaarna wuu sameeyaa oo eega aad arkayso haraggii baa ku jira oo waa in haragga laga saaro oo hilibka gaduudan kaliya baa la samaynayaa markuu hilibka sii sameeyo iyo sii jaraya waliba oo intii loo gada lahaa u sii jaraya markaa shakhsiga ku sii wareejinaya oo haddana samaynaya oo saliidii iyo dabkii gelinaya ilaa adigu barsa oo ku jiraya dabkii oo bislaanaya kadib baa laga soo dhigaya laga gadayaa dadweynaha soo saaridaas ayaan ku jirnaa shaqaalaha ka iskaashatadan ka midnahay boqol waan ku wanaagsannahay shaqo abuur baan ka helnay wax walbaan ka helnay kalluunkii baan ku wanaagsannahay oo marqiisa cabaynaa hilibkiisa cunayna oo hadii ma dhina waxyaabo badan oo naga maqnaayo dareemaynay sida dhabar xanuunka siday hore u sheegtay macnaha qofka iskaashatada dhinac kale dadka odayaasha oo waxba qaban karin way qabanayaan oo reerkoodii bay si fiican u dhaqanayaan waxyaalo badan baan ka helnay suugiisi baa kana oo hadaad macnaha u baahato waa laga iibinaya oo hadii ma dhina waad gadani oo meelo badan ba asagana daawo u yahay alxamdulillaah rabbil caalamiin qatariyoonkana waan ka soo saaranaa mushaarkana si fiican baan naloo siiyaa alxamdulillaah waan ku wanaagsannahay shaqadana si wanaagsan baan u wadanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabaase Cabdi kalluunka iskaashadan kalluunka ka shaqeynaa shaqo fiican baan ka helnay waa shaqada ma neen hadda laakiin camal baan ka helnay waan ka shaqeysanaa akoonyan ka furano lacag baan ka dhiganaa bangiga si fiican baan uga shaqeysanaa asana fiican tahay shaqo fiican baan ka helnay bismillaahi rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Aadan Cabdi waxaan ahay maareeyaha shirkadan kalluunka Shabeelle run ahaantii anagu haddii aan nahay iskaashatada kalluunka Shabeelle shalay sida aan ahayn iyo maanta sida aan ahayn baan waxoogay ka warbixinayaa maanta saan nahay iyo shalay saan ahayn shalay waxaan ahayn dad maalayacni iska meelaha iska taagan shaxaad ku nool iska meelahaasi waxa weeye iska soo tooso iska seexdo xukuumaddu go'aanadii ay qaadatay
shacabkeeda in ay saboolnimada ka saarto ka mid ka ahaa boorasiisyadaas ka mid ah ayaana lagu daray waxaana loo sameeyey intaan lacagtana la siinin ka hor tababaradaasi yaan waxaan ka dhaxalay xirfado fiican oo badan oo waxa weeye muddo noo socday ilaa iyo 3 bilood oo tababara ayaa ka horeeyay inta aan lacagtana la siinin sidaan u daban lahayn sidaan shabaga u dhig lahayn sidaan u soo bixin lahayn sidaan nadaafadiisa u ilaalin lahayn sida kolku uu caydiinka yahay waxa weeye u ilaalin lahayn soo dhimanin kolku uu nool yahayna soo dhimanin soo ilaalin lahayn kolka la bislaayay soo dhimanin soo ilaalin lahayn sida aan oola macaamil lahayn dadka iyo bulshada aan ka dhax ganacsanayno run ahaantii xirfado badan baa nala baray waxa kale oo nala baray lacagta qabashadeeda iyo sida loo kaydiyo iyo sida la isugu filaysiyo inta waa nala baray maantana kolkii lacagtana la siiyay waxaa timid inaan furno hotelkan aadka u ballaaran oo lagu magacaabo iskaashatada kalluunka gobolka Shabeelle ama maamulka magaalada Goday waxa weeye xirfadihii nala baray iyo lacagtiina la siiyay runtii maanta qumaatiga waxa weeye mirdhal aan oga helay waan ku noolaanay carruurtaanada ku noolaatay maxaan dhahaayay lacagaan dhiganay oo kayd baan samaysanay akoonadan lacag noogu jiraan runtii waan arkayseen kalluunkii oo nool kii oo la qalahayo kii oo la harag bixinayo kii oo waxa weeye bisil kii oo subagiisii la hayo maraqiisii iyo laftiisii oo meel gaar ah lagu diyaariyay runtii juhdiga ay xukuumadda gelisay iskaashatadan kalluunka Shabeelle dadaalkii ay gelisay waxaan rabnaa in aan gaarsiino oo boorsiiska hadda noogu jirta 3 magaalo oo waaweyn sida Qabdahar Dhagax Buur iyo Jigjiga inaan kalluunka 3 meeloodba goobo ka furo ya boorsiiska hadda noogu jira hadii la yiraahdo kanna waad arkayseen saad wada daawanayseen waa foornadii lagu sameynayay kalluunka wuxuu kala leeyahay 3 qaybood qaybtan kalluunka waa lagu bisleeyaa qaybtan hoosana waa lagu bisleeyaa qaybtan dhaxo waxa jira kayd qaybtan dhexe waa kayd hilibka kolkii uu ku bislaado qaybtan waad ka saaraysaa qaybtan aad gashanaysaa waa kayd siisi asagoo kulul baad kala soo baxaysaa waa qayb kayd oo dhaxda weeyaan labadan qayboodna waa lagu sameeyaa hadda waa kan si aad arkaysaan buu ku jiraa kii oo bisil kii oo kaydana waa ka xagga hoose ku jiraa waad aragtaan iyadana qaybtan hoosana uu leeyahay oo waa lagu bisleeyaa iyada laftigeedu mashiinkan qaybo kale inta loo isticmaalo leeyahay qaybahan laftigiisu waa shoolado waxa lagu sameystaa waxyaalaha subaga kalluunka oo kale maraqa oo kale garanaysaa suugada yar ee u baahan tahay oo kale shoolado buu leeyahay la saarto oo waxa weeye lagu sameysto dabool buu leeyahay kadib ko aad waxa weeye dabaysha iyo waxa weeye qorraxda iyo qashinka aad laga dadaayo kan laftigiisu qufulkiisa ama daboolkiisa waa kuwan oo halkan laftigiisu aad ka arkato waxa kale oo aan haysanaa talaagadihii aan ku kaydinaynay kalluunka hilibkiisa cayriin oo dhan 3 talaagood tan iyo taa iyo toka kale halka taala oo si uusan isu bedelin hadii uu 10 bari yaal hilibkiisu yan taxadar ka sii sameeyna marka hore maadaama aan haysano koronto 24 saaca oo waxa weeye meelaha qaar aan joogin anoo maadaama koronto 24 saaca aan haysano korontadii waxa weeye leerkii dawladda caadiga ah sida darteed waxaan basanay talaagadaha hilibkiisana waan badinay markasta la waay karo 24 hours hotelku furan yahay 24 saac waa la helaa kalluunka isagoo bisil iyo isagoo cayrinaba macaamiisha ugu xiran kalluunku runtii waxa fiicnaa xilliga qadada oo kale inaad sugtaan xilliga qadada wadankan intuu buuxsamo iyo qaar dadku inta saxamada qaataan bi gudaha u galayaan wilish sameynaya kalluunka inta kuraasta oo dhan buuxsanto
banaanka la wada istaagay nin walba jirdiin buu la istaagay oo ku cunaya saxankiisa intuu qaato kalluunku marka macaamiil badan buu leeyahay aad baa loo jecel yahay reer godayahan aad bay u jecel yihiin subagiisa aad ugu diyaarinaa aad loo gataa mawaydiisa oo meesha ukuntiisa ah oo aad ayadu waxa weey su'aasheedu noogu badan tahay baan ayaduna u diyaarinaa waxaan diyaarinaa madaxiisa oo loo yaqaan qaybta maraqa oo fitamiin badan leh waana qaybta ugu fiintiin badan madaxa iyo duudleydan iyo dhabarkanba madaxiisu waa la cunaa waad arki doontaan dhawaan dalabka sida lagu bixinayo madaxiisa waa la cunaa waxa weeye hilib buu leeyahay subag buu leeyahay maraqiisana waad arki doontaan ama waad aragteen run ahaantii iskaashatadan waxaan leeyahay dadaalkii nala geliyay ama juhdigii xukuumaddu na gelisay waan ku mahad celinaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa dowladda deegaanka Soomaalida iskaashatada Shabeelle ee kalluunku waxay ka mid tahay dhalinyaradii dowladda shaqaabuurka u samaysay lacagaha deebisay waxay ka kooban tahay 15 xubnood oo 10 xubnood oo mataqaanaa gudaha iyo 10 xubnood oo mataqaanaa iyo 5 xubnood oo soo ururiya mataqaanaa kalluunka wabiga ka soo qaada marka waxa kaloo qorshe uu kala qaybsamay lacagta la deemiyo waxay 1 milyan oo bir 1 milyan waxay isugu jireen iibka baabuur fiijno mataqaanaa kalluunka u sii qaaday ilaa magaalooyinka Qabdahar Gaxbuur iyo Jigjiga si loo gaarsiiyo mataqaanaa adeegga kalluunka iyo qaybtan ay ku ganacsanayaan magaalada gudaheeda ee hoteelka Maqla wadooyinka lagu qarinayo ee kalluunku koob ka yahay marka waxay yihiin iskaashatooyinka ugu wanaagsan iskaashatooyinka la sameeyey ee lacagta deynta ana 6 bilood ee laga rabay soo celiyay si fiican la shaqada isbigu wuxuu nagu dardaaray muwaadin kasta oo xalaala xaqiijinta horumar buuxa dhankiisa inuu xayto shaqada xusulada u toobto muwaadin kasta oo xalaala xiliyo wahaa waajib saaran xisbigu waa horseedka guusha xisbigu waa huga bulshada xisbigu waa hiiladeena xisbigu waa haybadeena soo warshaday oo wixii oo dhanba ka tagay ma aha laakiin kan dhacaankiisiba wata waxa fitamiinka watana waa dhacaankiisi waxaan kula dardaarmayaa maadaama bahalkan hadda faa'iidadiisa kalluunka la ogaaday cid kasta oo maskaxdiisu wama uu yar yahay ama ilmaha yar yahay ama ilmaha ninka weyn yahayba inuu ka qayb qaato oo cuno ayaan ugu faa'iideyn lahaa uuna yaala eegana waan sii ballaadhinaynaa Jigjiga xarun baan rabnaa inaan ka furo Qabdahar baan rabnaa inaan ka furo Gaxbuur baan rabnaa inaan ka furo inaan sii ballaadhina ayaan rabnaa marka cid kasta waxaan kula talin lahaa inay nala soo xiriirto telefoonaduna meel walba ay ku qoran yihiin shaqaabuur baan hadda ka helnay dhalinyaro badan baa hadda meesha shaqaabuur ka heshay oo hadda ka shaqeysa ilaa iyo dhalinyarada oo dhan ilaa iyo kontomeeyo dhalinyaro yaa ka shaqeysata awlor shaqamaana haysan wax shaqo laan baan ahayn amal laan baan ahayn hadda ma sha Allah shaqaabuur baan ka helnay hadda aad baan shaqaabuur aga helnay nolol maalmeedkaanidii aad baan aga soo saarnaa ciyaalkan ku biilnaa nolol maalmeedkan aad baan aga soo saarnaa shaqaabuur baan ka helnaa hadda aad u wanaagsan dhalinyarada kale waxaan kula dardaarmaa inay kalluunkan macnaha dalkeena ka soo baxay inay ka faa'iideystaan ay soo saartaan oo ay macnaha hilibkii kale iska dayaan hilibka kalluunka ay basadaan hilibka kalluunka aad buu wanaagsan yahay waayo waxyaalo badan buu ka wanaagsan yahay waana la wada ogsoon yahay kan badda iyo kan dalkeena inuu faa'iido weyn kala leeyahay sababtoo waxyaalo badan uu u baahan yahay iyo waxyaalo badan buu faa'iido leeyahay waayo maskaxdaada macnaha ku sifeynaya caruurta yarka sidoo kale waa la siiyaa marqa hilibkiisa waa la siiyaa marka la siiyana maskaxda fresh bay noqonayaan aad bay wanaagsananayaan maskaxda dhamaan shaqaalaha ilaa intan kushinka iyo intan ku jirta konton ruux amal dhan alxamdulillah qaar ciyaal qaalan lahayn ninka ciyaalna ciyaalkiisa ku bisha ninkan ciyaal lahayn de bangiyaasha iyo meelaha iyo lacagta dhigta alxamdulillah rabbil alamin waa mahad ilaahi
awalna ma jirin oo kalluunkan iyo waxan ma jirin waaba laga faani jiray sida inta badan dadka oo waa laga faani jiray laakiin alxamdulillah hadda si wanaagsan baa loo wada cunaa oo loo wada bartay say hore u sheegtay iskaashatada qofka dhan kale inaan cuno ma ogeyn macnaha ma seexanay xisbigu wuxuu nagu dardaaray muwaadin kasta oo xalaala xaqiijinta horumar buuxa dhankiisa inuu xayto shaqada xusulada u toobto muwaadin kasta oo xalaala xiliyo ahaa waajib saaran xisbigu waa horseedka guusha xisbigu waa huga bulshada xisbigu waa hiiladeena xisbigu waa haybadeena أعتقد إنه شيء ده واسكت سنة لكن هذا نور في عمان كويس أنا سيف عمان وش كويس أنا سيف واقع هوري هذا سيف عادي هذا بقول بدلنا نور شيء أنا سيف عمان كويس بدلنا تي ده أنا إن نقدر مثلاً وحن فوفن وش إنه ودي استان وسيف عن شغال كان إسكاشته وسيف عن وش كويس أنا ونودي استان وكل الدار ملا إن هذا كور ده ضد مجا ضد بانكاين هذا كور مجا كله ضد بانكاين لكن ضد وحناين ضد ونه عن ضد هين oo iska soo tooso meelaha istaago oo hebel shaxad u doon iyo meel hebla waxa weeye maanta hebel baa mushaar qaadanay iyo hebel baa maanta qandaraas u qaatay la yiriyo waxa ku xisaabtama oo shaqaynin oo meelaha taagan maantana alxamdulillah lacaga noo yaala waan shaqaynaa 24 saac habeen iyo maalin waan shaqaynaa iskaashatadu waxay heegan u tahay inay shaqaysato kolkii shaqadana la siiyay tababarana la siiyay annagana waxaan u diyaar garoonay oo guddiga u gaabsanay waad arkayseen maan u malaynayaa maanta intaan qow maray ama aan maray faraq waad arkayseen meelahaas dhaadheer baan kalluunka keenaa halkan aan keenaa waan diyaarinaa lacag baan ka qabanaa lacagihiina akoonkaan gashanaa inta shaqaale ee hadda joogta kalluun hotelka runtii 22 ruux weeye inta joogta hotelka ee shaqa abuurka ka heshay 22 ka ruux midaan akoon u furan male kurtigood buugtoodiiba halka taalada arki doontaan akoonnada ay ku furteen asarka nin walba kolku qaatay fidinkiisa bangiga oo kan agtiisa aar soo dhigan maalinku doonno kala soo bix waxaan diyaar u nahay marka oo waxa weeye aan laftiga ayagu ku hami dheerahay annaga shaqa abuurka naloo sameeyay inaan dad kale inta annaga laftiga annagu caawino oo shaqa abuur u sameeyno shaqooyin yar yar kuwa hotelka dhexdiisa ka shaqaysta iyo kuwa kale inta oo soo korinayo waxa weeye aan shaqa abuur u sameeynaba dhalinyarada kale inta ee shalay sida annadii meelaha taagneed ka soo baxaan shaqa abuur ha raadsadaan tababar ha raadsadaan sharciyada iyo boorsiska loo marayay waxa weeye lacagaha la isku siinayay xukuumadda ay diyaar ka la tahay 24 saac shacabkeeda heeganka oo la tahay ha ka qayb galaan ha iskaga soo tagaan meel istaagi anana shay ku jireen ka baxnay dhalinyarta taasan kula dardaarmi lahaa waxyaabaha faa'iidada khayraadka deegaanka uu leeyahay sida dhaqsaha badan looga faa'iideeyo hadii inta ka faa'iidaan ay mataqaanaa magaalooyinka kale oo dhan barantiya ka fata marna sida talbiya dhaga ugu jigjiga sida ay u sii wadaan ilaa iyo mataqaanaa ay ka qaysan bartiya gaariguna markaas inta ugu sii qaado meel walba sii dhigto waxaan hubnaa marka hadii ay sida u joogteeyaan inay dhaqaalaha wadanka naftooda iyo ka deegaanka iyo ka dalka guud ahaan inay wax iska bedeli doonaan marka waa inay qaabka u shaqeeyaan kuwa kale dhalinyarta kale soo koraysan ay ka daydaan lacagtiina sidii la rabay u soo celiyaan si walaalahooda kale ka dambeeya ay u qaataan lacagtooda soo celiyaan iyaguna sidoo kale ugu faa'iideystaan xisbigu wuxuu nagu dardaaray muwaadin kasta oo xalaala xaqiijinta horumar buuxa dhankiisa inuu xayto shaqada xusulada u toobto muwaadin kasta oo xalaala xiliyo ahaa waajib saaran xisbigu waa horseedka guusha xisbigu
waa huga bulshada xisbigu xisbigu waa hiiladeena xisbigu xisbigu waa haybadeena magacayga Axmed Yar leedah kulli maqaadan aan taaganahay waa Shabeelle waa meesha kalluunka lagu sameeyo goday waa meel macaamiil fiican oo aan ku xidhanahay kulli marka safarada u baxno awal meel la heli jiray qada qaadan hadda laakiin markaan meelaha u baxno waa si baxaysan qalaafo mustaxiil calaadley marka safar u baxno waa si qaadana aad uga helay kulli aad baan u mahadsan yihiin inay si kordhiyaan aad uga rajaynayna baalkana waxa weeyaan sidiisaba hilibka xoolaha ma naqaan hilibka kalluunka meelna noqon oo meelaha qaar kood waxa arka kalluunka oo dafo yeeliyaan loo dadkii ay gaajoonayaan shibirihii naxnaxeen dadkiina ma taqaanaa aad u tabar daran yihiin marka waxaan ku waalin lahaa Shabeelle waa khayraad aad u muhiim ah khayraadka kalluunka inaan ka faa'iideysano si fiican u isticmaalo halka xooluhu inuu buuxinaya kaalinta xooluhu buuxinaya kalluunku wuxuu faa'iido leeyahay waxyaabo fara badan aan la soo koobi karin taasoo kamid ah sida TB-da kale faa'iido buu leeyahay oo macnaha dhaqaatiirta u soo qorto oo macnaha dadku u soo qortay daawada ay dhigto TB-da ruuxi hayso sida macnaha dhabar xanuunka kale sida macnaha waxyaabo fara badan oo sida bawaasiirka kale hataa oo ninkii iska dareema hataa bawaasiir iska dareemo waxyaabo fara badan oo la soo koobi karin ayuu dadka macnaha wax ugu taraa kalluunka wuxuuna la mid yahay maanta cunto cabitaan fara badan oo biyana waad leedahay haddaan maalintaad cunin biyaada hoos bay u dhacayaan oo macnaha biyo badan ma cabaysid laakiin maalintaad cunto oon badan buu keenayaa biyihiina macnaha caadi waad u qaadanaysaa cuntadiina caadi waad macnaha u qaadanaysaa caafimaad fara badan oo aad loogu macnaha u wanaagsanna wuu leeyahay marka dee anaga kulley gaar ahaan aniga magacayga ranni sheegay maxamed Goorlano kalluunkana aad iyo aad baan u xiiseeyaa oo maalina kama baaqdaba oo maalin walba aan cunaa hilibka kalmaba isku day asaga un baan cunaa oo macnaha faa'iidooyin fara badan ayaan ka arkay sababtoo malaria uma dhacdo oo malaria ay daawo ah oo cirbada malaria qudhiya asaga un baa laga sameeyaa oo markii malaria ugu dhacdo qandhi iska dareemay hargab ugu dhaco sidoo kale asaga un baan cunaa marka de waxaan marka walaalihiin u sheegayaa oo dadka muslimiinta u sheegayaa kalluunkii berigi hore laga heshiis jiro la dhigi jiray waa wax oo sanka laga qabsan jiray heer gudi waxay soo martay gobolka Shabeelle gaar ahaan ay soo martay dadka ee macnaha ninka kalluunka cunaya bac gacanta u gashto haddana nin walba gacantiisu ku cunaya dumar iyo ragba oo macnaha de taas anaga uu goob joogayna meel badan lagu dubi jiray gacanta lagu cuni jiray gaas baa la iskiga dhaqi jiray haddana faa'iidadiisa dib baa laga ogaaday waatana maqaaxida weyn loo furay oo iskaashtooyinkii dawladda macnaha ay u furtay in macnaha horumarka ay gaarsiiso hore macnaha loo sii wado hilibka la cunayo xoolaha kale asaga aad iyo aad aga tayo fiican maraqiisa wax walba xanuun walbana uu difaacaya wax kale dib uu leeyahay oo aragnimo la caafimaad badan uu leeyahay baan macnaha dareensannahay waxa aynu soo gaadhnay waa gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena dhig joojinta saboolnimada oo toddobaadkani aanu ku soo qaadanaynay iskaashatada kalluunka ee Shabeelle barnaamijka waxa idin soo diyaariyay idinlana socodsiinayay waa anigu ah Cabdirasaaq Ibraahim Kilaas Cabdirasaaq Daaja dhinaca kaamiradu waxa uu ahaa saaxiibkay Abshir Rashid oo aan ugu mahadcelinayo sidoo kale dhinaca habeenta ee barnaamijka waxa mar walba kaalin ka qaata waxa weeyaan waan aad ugu mahadcelinaya waa saaxiibkay Maxamed Farxaan guud ahaanba waa bahda barnaamijka dhig joojinta saboolnimada ee ESTV oo si isku duuban idinku dhaafaya inta barnaamijkan oo kale taa toddobaadka dambe hadduu Allah awood leh ogolaado aynu dib hawada ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh saaxiibayaal aad baan idinka mahadcelinayaa barnaamijkayga qayb libaxle ayaad ka qaadateen toddobaadkan ee dhig joojinta saboolnimada runtiina aad baan ugu faraxsanahay inaan arko dhalinyaro waxa weeyaan aad u yaryar oo xoogooda iyo muruqooda shaqaysanaya isla markaasina shaxaad iyo fikrada ciriiriyoon ee dadka qaar ay aaminsan yihiin ee markaasi qof kale ta laga yaabo jeebkiisa waxa ku jira ay ku haweysanayaan intaad ka baxdaan inaad xooggeena iyo muruqeena aad shaqaysataan isla markaasina khayraadka deegaankeena uu leeyahay ee diin waxa weeyaan inaad soo saartaan haddii ay tahay waxa weeyaan dhinaca kalluunka aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba fikradeena iyo dadaalkeena halka ka sii wada ayaanu idin leenahay